iyadoo sanadihii ugu dambeeyay golaha deegaanka ee degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka dhex taagnaa khilaaf baan oo in badan soo jiitamay isla markaasina ay habeen kasta warbaahinta isu marinayaan hadal xanaf leh ayaa waxa telefishinka Home Cable TV wasaaka mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo iyagu doortay golahaasi deegaanka ee degmada Burco horta bal had dambeeyay khilaafkoodii iyaga wax ma u qabteen waxaana dadweynaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo reeyadooda ka dhimanaya kamid ah hadaladoodii deegaanka Burco uu ku fashilmay wixii loo doortay wadadii 18 ahaydna waxay bilaabeen iminka intay iibsadaan inay ka soo reebaan gabigeedaba 12 kii ugu liitay ee soo mara Burco weeye golaha deegaanka dadkan balbeeshka reer Burco ayaa iskugu wacan inay nooca noqdaan waayo reer waliba wuxuu yiri keebaa wax boobi kara oo aynu geynaa meesha 12 koodii baa is haysta oo isku mashquulsan xashiishkii wadooyinkii meel ay marayaan Burco lama arag dadkiiba guriyihii meel u maru leeyahay wadooyinkii qayba go'an oo la dhistay taa imka baarsiga aynu taaganahay meel mid waliba intuu soo waday 10 mitir buu wadadiiba goostay maxaa laami laga sameeyaaba marka anigu waxaan oran lahaa dawladdu wayba dhaceenaha loo soo diro wax ka shaqeeyo oo maayara meeshan loo soo diro kuwana hal iska fanisho Allah wax nimankaas qabteen iyo waxay tareen oo ay gobolka ku soo kordhiyeen oo baaba ahayn kuwa jiro dawladda cusubna waxaan leenahay nimanka oo in la xisaabtamo wadooyinka waa la wada xiray waa la wada iibi anigaygan wada aan mari jiray oo booyadu soo mari jirtay laba guri baa labadoodii geedis gaadheen iminka hadaba garatay tigti reerka safarka u qaadhay gaadhi gali weey wallahi been badmoos waxa weeyaan horta arrinka golaha deegaanka waa loo ogyahay cid kasta oo la socota wax qabadkoodu inuu aad u liito waxa weeyaan haday tahay wadooyinkii hadii ay tahay waxa weeyaan xiradhiigo la garanayo hadii ay tahay waxa weeyaan meelo badan oo kale oo aan imka aanu sheegaynin waxa weeyaan wax allaalo waxay qabteen golaha deegaanka gobolka Togdheer inta soo martay ku ugu liitay way kuwani golaha deegaanka sida qolada hore ay sheegtay waxa la waxay qabteen ma jiraan waa fadhiid xana oo may qaban in dawladda hoose mid ma qaban iyaga dunida ku shaqaystay nafiya maalba waa la galiyay nimanka dawladda hoose deegaanka waa la soo saaray dadkii soo saaray bacadka u taagnaa ma eegin way baabiyeen iyaga dunida liqaayaga u heshiiyay anigu waxaan aaminsanahay golahaas inaanay waxba u qaban gobolka iyagu ma is haysto marba mooshin isku soo kicinaya magaalada waa taas haddii roob yarido meel kasta biyo ayaa fadhiya waxa weeyaan ku caadaystay inay bulshada kala qaybiyaan ay qabyaalad u kala qaybiyaan hadii bidmaayo bulshada gobolka oo ay xumaan ay kala dhex dhigeen marka waxaan leenahay dhown dawladda hoose ha dhacdo dawladda hoose iyo waxa haystaa haddaanu fakirkay ka dhibano waxaad wadisaadeen anagu adeer suur kasto aan ku marno magaalada xashiish iyo khashib baan ku aragnaa aan cid xaaleyn iyo wadooyin burbursan golaha deegaanka dadka dhex marayo shaqeynayaan adeer maanu arag haddaan ruu sheegno weey golaha deegaanka Burco uma qabanay dhulkii Burco iibsaday waxa uu dambeysay halka iyo ka yimika uu ka joojiyay madaxweynaha cusub ee Biliiska dawladda hoose Burco waxna way qabatay waxna way cuntay laakiin waxay cuneen baa ka badan wixii ay qabteen waxa la golaha deegaanka magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer way uga dareen wax qabad ay qabteen oo ay muujiyeen ma jirto golaha deegaanka magaalada Burco waxaan cadeynaynaa inay waxay qabteen aan jirin baahay ku soo kordhiyeen magaalada mooyaan wadooyinkii baa xiran wadooyinkii bay iibinayaan waxyeello mooyaan waxtar bay soo kordhiyeen leen anu waxaan qabaa rayga ah waxba may qaban laakiin imika hadaynu eegno gobolkii dawladdu lahayd iyagaana ka mas'uula mid allaale waxa dhayo ma jiraan waxaan leeyahay wax allaale iyo waxay qabteen ma jiro laakiin dadka waxaan leeyahay waxani waa camalkiini weligeed lama arag deegaan lagu doorto qolo dadka waxaan leeyahay idinku gacmaha isgooya golaha deegaanka Burco wax allaale waxay qabteen ma jiro waxay dalka ka dhiciyeen mooyaane wadano ma sameeynin ciidiyeeba isku kaashbaan iyo sibid laba casho marka gaarigu marna way burburtaa waxbaanu qabanay madaxweynaha cusub ka codsanayna inay baabiyaan golaha deegaanka Ibrahim Faarax Macaan iyo Home Cable TV Burco.